xuquuqul insaanka madaxa bannaan madax dhaqameedka wariyo hore oo rogcadaaya dhalinyarada jaamacadaha dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta TV-ga Universal وهاجا كده داودyaal waxaan ku bilaabi doonaa dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacda magaalada Muqdisho oo ahayd dhacdo xanuun badan oo markaasi ifka lagu gubay nin lagu magacaabo Axmed Dawle iyadoo loo gubayo hab qabyaalada taas oo inaan u adeeru yahay oo guursaday gabadh ka soo jeeda beelaha waaweyn ee degan magaalada Muqdisho ugu horreyn waxaan ku horeysiin doonaa Cabdikariin Axmed Mooge oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadda hore Axmed Siiraayo haddana ah gudoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaalada bal arrintaas aad u aragtaa والله horta marka hore aad iyo aad baa mahadsantihiin barnaamijkan qabataan waxa weeye horta qarnigii 11aad waxa muruga runtii ku naxdin gelinaya in arrin sidaa u foolxumay ka dhacdo dhulka Soomaalidu degto arrinta Muqdisho ka dhacday waxay ahayd arrin murugadeeda leh waxaanay ku tusaysaa ay sawir fiican ka bixinaysaa in heerka haybsoocu uu gaarsiisan yahay dunida kale uu ka jiro way adag tahay in qof bini aadama naftiisa uu ku waayo saacado yar oo kooban oo waliba sidii ugu foosho xumayd loo dilo مثلا laba caruur oo yar yar oo isjeclaaday jacaylku qabiil ma yaqaano inuu Axmed Dawle ninka la yiraahdo nin aabbo 12 caruur leh aabiyo weyn haya muruq maalo oo mataqaanaa xooggiisa ugu soo saaray bariiska caruurta cun lahayd inuu ku waayo naftiisa waayo inuu adeeru yahay baa jeclaaday beelaha isla tunka weyn runtii waa arrin muruga leh waa arrin runtii magaca Soomaalinimada ku fool xun Muqdisho fool xumaynaysa magaalada ka dhacdayna magaalo fool xun bay noqon doontaa taariikhdana Muqdisho waxay ku galaysaa in qarnigii 11aad in heerka haybsoocu uu gaarsiisan yahay dadka halka ku nool waxa la gudboonay arrinta ka kacaan ka dhidhiyaan dawladana waxa ku ceeba inay ammaanka suga kari weydo oo magaalada Muqdisho ay ka talisay dhexdeeda qof bini aadam sidii ilaahay bini aadam sidii la cadaabayo oo kale in qofka inta la jirdilo la handido loo caga juglayo marka dambana ay gaadho in inta nabar loo geystay marka dambana ifka lagu gubo waa arrin tiiraayadeeda leh waa arrin murugadeeda leh waa arrin ceeb ku ah qof kasto sinjiga Soomaali ka halkan bay nagu soo gaadhay dhawaaqaas waa dhawaaq fool xun waa dhawaaqna damqay waxaana ka baqanayaa runtii masiibada iyo dulmiga aad halka ka dhacay inuu Soomaalida oo dhan wada saameeyo inagana waxay nagu waajibaday cod dheer inaynu ka soo horjeesano codkeena kor u qaadno kuwa sameeyna waa sharciga la hor keenaa sharciga lagu abaal mariyaa kitaabka iyo shuruucda dadka halka ku nool ee Soomaaliyeed ay dhigteen iyo kitaabka Ilaahay dejiyay wixii ay ka helaan waa inay helaan waayo waxaan rabnaa casharkan imika dhacdadan ugu dambeysay inay cashar u noqoto kuwa dambe oo aan qof dambe awood u yeelan inuu qof because inankaagii ama inantaadii baa qof jeclaatay ama inankaagii baa qof jeclaaday inaanay dee gaarsiinin in nafta ma taqaana in laga qaado waad mahadsan tahay waxaan u weecanaynaa Maxamed Xasan Cali Waji waa wariye rogcadaaya haddana ka tirsan idaacadda dawladda iyo wasaaradda warfaafinta in badan buu arrimaha bulshada ka soo hadlay in badan buu ku soo dhex jiray dhinaca saxaafadda maadaama waaye aragna yahay qisada Muqdisho ka dhacday haddaad la socotid Waji dhinaca Soomaaliland ma jiraan qisooyin sidaas oo ka dhacay marka hore waxaan u tacsiyeynaya oo tacsiyad kaliya laaba u diraya runtii anoo ku hadlaya magacaynta ay la aragtida oo dhan inta bini aadanimadu damqayso inta damiir nool leh inta fahmaysa islaamnimada iyo diintii ku jiraan anoo afkooda ku hadlaya waxaan leeyahay qoyska uu ka baxay aabuhu oo gordarada lagu dilay waan idinla qabnaa geerida ilaahay waxaanu ka baryaynaa isagana naxariistan inuu ka waraabiyo annaguna waxaanu idin leenahay sida uga damqanaysaa si ka daran baan uga damqanaynaa ummadda afka Soomaaliya ku hadashaana ma aha daalimiinta ay dilay kaliya ee dad badan oo wanaagsan ay inta badan way wanaagsan tahay waana idin la tiiraayay waxaanu idin leenahay ilaahay waalidkiin naxariistan ka waraabiyo idinkana ummadda afka Soomaaliya ku hadasho dhan ayaa maanta idin xaal marinaysa idin la xanuunsanaysa waxaan leenahay guntiga xidda ha u ooyin daalimka adkaysta haddaan ka hadlo arrintan aad weydiisay inaan jami weydiisay ilaahay inama bada taasoo kale Somaliland wax aynkaasi kamay dhicin haddana ka rajayn mayno in ilaahay nagu keeno maanta waxaan leeyahay dadnimoy oy gobonimoy oy dadka ku faanaya qabiilka kuwa ku faanaya hayb kuwa sheeganaya inay yihiin laandheerayaan waynu gumuuni maanta ku noqoteen
walaalkiin baa gubteen qof islaam oo idin la mid ah ayaa ka faanaysaan oo waliba ka faantaan waa faani jirteen hadde aad dab qabadsiiseen maantaanu garooshiyeed ku haysan weli war xaggee qabtay madaxdii geeska afrika nin madaxweynaha oo af soomaali ku hadlaya oo u tacsiyey ma maqal xitaa xaggay jiraan waayo waxaanoo kale wax laaki jiray ma qoyska hadda inagoo aynu ku hadlayno saa uga hadlayno madaxweynaha uu hoostiisa ku dhintay waa farmaajo erey moorn walaa tegis u tagay iska daaya ka ku xiga ee ra'iisul wasaaraha ee weliba haybta dagaalamaysa ma hadlin dad inagoo kalaa qaylinaya mee madaxdii mee gobonimadii mee dadnimadii mee qarnimada sheeganayno maanta waxay ahayd in loo wada kaco ma aha in qoyskan bariis la siiyo ama dhar la siiyo in loo kaco waxaan wax laga qabto adeer maal boy dhacdaa markaad weydiinaysaad leedahay arrimo noocan ma dhacan aniga maxamed ahaan haybahaasan ka mid ah waan ku quraacdaa waan ku qadeeyaa waan ku seexdaa waxaan dhahaa gulqaniyada jaahilka maalba 10 jaahil bay igu hor yimaada oo igoosta qayb ka mid ah jirkayga waxay dhegtayda soo gaarsiiyaan taay ka hadleen mooyta kalama maqashiyo laakiin waxaan la kulmaa haddana markaan 100 noocaasa soo jiiro qof bini aadmi aan la kulmaa oo aan ku socdo dhowr saacadood oo dambe oo fahmo qiimaha iyo wada dhalashada iyo waxaan sunnahay markaan soo xusuusto taariikhda noloshayda aniga maalintii u horreysay iskuul gelayay mar baan damcay inaan cararo iskuulka dhexdiisa rag waaweyn oo ila da-ah oo caqligaa kudaafadda iyo ku jiray isla weynaanta oo macallimiin sheeganaya imtixaanka iga qaadayo nin ka mid wuxuu igu yidhi maxaa ku keenay halkan soo in hebel ma jid ma birtiinii iska tumatid 7 jir baan leh bal ka waran ummadda intii meesha joogtay oo aamusiin lahaydna qosol bay qowladii wada waaxeen ilmo intaa leg maxaa ku dhici kara waan xusuusnahay guulada axmed dafaac oo ah garyaqaan isla markaasina gudoomiyaha ururka madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka Soomaaliland maadaama tihiin urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka dhacdooyinka caynkana ay haybsooca guurka ilaa ay inta ogtihiin dhacdooyin caynkii ayay soo maray aad u mahadsantihiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa maxamed aan jecelahay dadka dhageysanaya hadday si fiican u fahmaan falsafadu ka hadlayo dhibtan inuu sheegayna inay istaagayso dhibaatada hadda xamar ka dhacday ee ninka lagu dilay dadku waxay ku baraarugeen heerka dhimashada ama nafgoynta ay gaadhay ee laakiinse takoorka iyo faqooqa ku salaysan maaragtay qabaliga ee dad gaara la takuuraya oo dhaqan Soomaalida boqolaal sano soo jiray meel walbana ka jira Hargeysa ka jira Soomaaliland ka jira dhulka Soomaalida degtana ka jira meel walba ka mid tahay kuwa aadka loo ogaadaana waa dad tiro yar oo geesinimo dhaafay oo intay dhaqanka adag iyo faquuqa dawladuhuna qaybta ka yihiin intay u adkaysteen ku dhiiraday inay isguursadaan dabeedna caqabad kaga timi baa lagu ogaa laakiinse markay soo doonaan bal isu diida maanta laba xaafad wada degan oo soo wada barbaaray Hargeysa ku wada noolba haday istoonaan qabaa'ilka ka soo kala jeedaan dartood loo diidayo aan loo ogolaanin inay isguursadaan dabeedna inaguna ma ogolaanin dhibta weyn markaa jirta waxa weeye koorka iyo faquuqa keligii maahay waxa jira dafiraad ama denial ay dadka reer dadka Soomaalida ay guud ahaan kuwan u warhayay Soomaaliland gaar ahaan ay dafirsanayaan oo aanay qirsanayn dhibaatadu inta leeg tahay oo loo arko wax yaro sahlan dawladuhu aan waajibaadkoodii saaray ahayd inay ilaaliyaan aan ka soo baxaynin dhiirigelintii looga baahnaan aan sameeynin maxamed cali wuxuu ka hadlay dhibta markuu arday noqday ka hortimi maanta arday walba oo beesha ka soo jeeda oo Soomaaliland jooga dhibtaas way food saartaa markuu iskuulka tago cid uga garowda ama wax uga qabata ama wax ka tartaana ma jirto intee in leeg baa ka sarfeef garoobaysa kolka oo fursad u helaysa intay dagaalka dheer soo marto inay jaamacad ka soo baxdo oo dabadna halkan soo gaadho waa tiranya marka mas'uuliyad baa bulshada saaran way qof kasto inaga mid takoorka ugu sameeyay hadaan isagu sameeyna abihi baa sameeyay hadaan abihi sameeyna woogi baa sameeyay marka qof wali waa dambiile marka sidii dambiga loo dhay lahaa dhibaatada wax looga qaban lahaa way la taaniga in waajibkeeda la galo waa maadsan tahay waxayna la joogaa Chief Caaqil Baashe عقاشه wuxuu ka mid yahay Soomaaliland dadka caaqil waxa la isku diiday hab qabiiliya soo jireena way ahayd
tan imika dhacday maahaana qaar kaloo badan baa jiray maxaad ka ogtiin maxaadse ka qabateen waxaan tacsi u dirayaa horta qoyskii iyo qaraabadii ku geeriyooday marxuumka gardarrada lagu dilay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu isagana jannadii ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan saadiqa uu ka siiyo waxa weeyaan waa gardarro oo waa nin muslima oo waxa weeyaan gardarro lagu dilay cadaana waa hubaal wehelu janno waxaynu leenahay arrinkaasi horta marka horeba ummad muslim ah oo muslim ku abtirsanaysa waa ku ceeb in maanta la yidhaahdo nin baa arrinkaas sameeyey dabeedna waa la gubay marka xigta inagu horta somaliland baynu nahay falkan halka dhacayna waa soomaaliya weliba waa magaalo madaxdii muqdisho waa halkii dadku ay ku dayan laayeen waa halkay soomaaliya ku hiran lahayd waa halkii hormuudka u ahayd waa muraayaddii laga daawanayay soomaaliya sida ay tahay iyadoo caynkaasa marka fal noocaasa lagu galo magaalo madaxdii muxuu ahaye muraayadda u ahayd bulshada ee soomaaliya oo dhan u ahayd muraayadda in fal noocaasa laga galaa horta aad bay dib u dhac iyo muxuu ahaye liitinimo ugu tahay waana bar madow oo ku taalla soomaaliya marka laga hadlayo innaga somaliland marka laga hadlayo horta dhaqamada noocaasi dee way soo jireen bay ahayn oo berigii hore waxay ahaayeen arrimo dee soo jiray bay ahayn iminkana way jiraan laakiin anigu waxaan odhan karaa iminka somaliland arrimaha noocaasa sidii hore wax badan baa iska bedelay way ka kortay waxyaabo fara badan oo berigii hore lagu dhaqmi jiray inkastoo ay dee haddana sii jirto takoorku sii jiro haddana sidii hore dhaqankii hore uu ahaa wax badan baa iska bedelay filina maayo dhacdada noocan oo kala oo dhacday inay somaliland ka dhacayso way jiraan dad noocaas oo intay isguursadaan amba inanta muxuu ahaye nabarro loo geyso la yar garaaco oo kale way jiraan amba laisu yar diido dabeedna marka dambe caadi iska noqda laakiin fal noocaas oo kale fili maayo inuu somaliland ka dhacayo waxaan kusoo gunaanadaya dad muslimaynu nahay diinku abtirsada qof diinku abtirsada oo muslim inuu qof kale oo muslina muxuu ahaayey takooro oo uu diido guurkiisa ama uu yaraysto waxa weeyaan diintana way naga xarimaysaa waxaan leeyahay dhaqanka noocaasa aan ka korro maskaxdeena iyo caqligeena aan korino asalaamu calaykum wahagaag waxaan usoo noqon doonaa cabdikariin axmed mooge iyadoo aan wada ogsoonahay in dhacdadaasi ay tahay dhacdo foolxum oo inanka adeerkiina la dilay inanta hooyadeedna xidhan tahay waxa wararka hadda soo baxaya ee warbaahinta qaar soo tabinayaan ay sheegayaan in lamaanahaas loo samayn doono aroos qaran oo dowladda soomaaliya ay abaabulayso tallaabadaa hadda la qaaday ee arrintaasi ay dowladdu doonaysa inay ka qaato ma tahay xilligan mid munaasiba mise waxaa jira tallaabo kale oo ka munaasibsanayd xilligan waad mahadsan tahay waxyaalaha aan markan kayskan baadhayay aan ku wareeray waxaa ka mid ah nin kale aroos qaran baa loo samaynayaa 2 caruuroo jacaylka ka dhex dhacay uu sabab u ahaa in qof aabbo 12 caruuroo dhalay 2 qoys lahaa aabihiyo da-ahayey sidii ugu foosho xumayd qof bini aadama loo dilay in aroosku farxad buu wuxuu diraa fariin farxadeed marka xilligeedii lama joogaan isleeyahay iminka waxaa la joogaa xilli xitaa 2 caruura dee siday weli da waxaan ugu shafaaco qaadaya da-doodu mala aada u yaro 18 jir inuu 18 jir baa inta waaba ka yar tahay iyo jacaylka oo madax maray ayaa laga yaabaa inuu ilowsiinayo waxa meesha ka dhacay geerida meesha taala way ka weyn tahay in aroos qaran la abaabulo aniga waxay la tahay anigoo u nasteexaynaya duqa magaalada muqdisho oo magaaladiisii foolxumadani ka dhacday taliyayaasha dee ammaanka ee nabadgelyada u xil saaran waayo arrintu madaxweynuhu soo faragelin karaa laakiin
dee maamulku markuu daadego ku fiican yahay saasaana wanaagsan dadkaa sida gaarkaa magaalada muqdisho u maamula tallaabada ku habboonimaha aroos qaran la gengamee waxa weeyaan kuwii dembigan weyn ka galay soomaalinimada sharaftii qof kastoo Soomaaliya ama jigaha jooga ama Djibouti ha jooga ama Kenya ha jooga ama Soomaaliya ha joogay arrintan taabatay kuwii sameeyay horta in sharciga la horkeeno way sharciga in lagu abaalmariyo way sida ugu adagna loogu abaalmariyo marka arrintaasi timaado carruurtana waqti la siiyo waayo halkan eeg inantan maxamed yara jecel hooyadeed baa u xidhan inay ehelkeedii qaar ka mid ah inay naf bini aadam gooyeen marka arrintu uma sahlana sida iyaga ula fududahay waxaan qabaa xitaa jacaylkoodu marka dambe saameyn bay arrintani waxay la noolaanayaan waxay u baahan yihiin inay dadka council dad la taliya oo arrimaha noocana ka tala bixiya inay la kulmaan waxa laga yaabaa imika ishelitaankooda inay ishelaan ayaa kala weyn oo ma garanaysaa dhibta meesha ka dhacday ka weyn inanta iyo inankan isjeclaaday inanku agoon weeye aabihii weeye ninkan waa adeerkii oo halkii aabihii ugu jiray oo isagu soo koriyey oo isagu intaa soo leekeysiiyey ayaa geeridiisa taalaa weliba u dhintay si aan marka aad arrinta daba gasho runtii saameyn kugu yeelanaysa ku damqaysa hurdada kuu diidaysa marka arrinta anigoo hal argeysa jooga sidaa ii damqaysa kii koriyey ku dhacday inuu aroos iyo hoteelka yare lagu soo sawiraya iyo arrinta waxbaa arrinta inuu da'dan ugu shafaaco qaadaya xilligeedii lama joogo xilli farxadeed lama joogo xilli aroos lama joogo qaranku hadduu rabo inuu sharaftiisa ilaashado dowladda Soomaaliyeed maanta waxaa u taala duqa magaalada Muqdisho magaalada uu maayirka ka yahay dhacdadan ka dhacday fooshaxun waxa u yaala waxa u taala inuu kuwii dambigan geystay sharciga hor keeno weliba in la sugo maaha ummadda Soomaaliyeedna wuxuu baa qancin karta meel kasta adduunka ka joogaan kuwii dhibtan geystay oo sharciga lagu dhibaateeyo ilmaha iyo inanka yarna aan waxaan isleeyahay loo geeyo dhakhaatiirta ku fiican arrimaha noocana inay ka tala bixiyaan in la dhageysto u baahan yihiin in wax loo sheegay u baahan yihiin iyaga arooska iyo isla gurigalka ayaa u muuqda meesha waxa yaala 12 caruura waxa yaala laba hooyo waxa yaala aabbo weyn waxa yaala Axmed Duulo ehelkiisii oo dhan baa yaala halkan ugu dambaysa caruurtaasi xitaa sida ugu noolaanayaan Muqdisho waa labada qoys waa jaar sida la sheegay marka xitaa wada noolaanshaha ayaa adkaan doonta caruurta yaryar ay la nool yihiin kuwii aabahood ifu ku gubay hadday maanta tayda noqon lahayd madaxweynahaygana waxaan ugu nasteexaynaya runtii Somaliland sharaf bay u noqon doontaa qiimo u noqon doontaa sharciga Somaliland uu ogolay dastuurkeena uu ogolay madaxweynahayga anoo ixtiraamayo waxaan ka codsan lahaa barnaamijka haddii ba uu daawado ama cid gaarsiin karaysa ay daawato inuu caruurta iyo labada hooyo sharciga Somaliland madaxweynaha uu ogolay inuu bixin karo dhalashada Jamhuuriyadda Somaliland inuu Somalilandnimo lagu kifaalo qaado halkan la keeno Soomaali baynu nahay dawladuhu ha kala duwanaan laakiin dad Soomaaliyeed baynu nahay in caruurta ay qaranka Soomaaliya xil qaado halkan lagu koriyo wax la baro loo sheego inay jiraan Soomaali wanaagsan haddaynu inagu halka fursada ka faa'iideysan weynana madaxweynaha kilka Soomaalida Ethiopia odayga Soomaaliyeed Ismaaciil Cumar Geelle waxaan ugu baaqayaa haddii inagu aynu fursada ka faa'iideysan weyno in caruurta ay meel ku cil baxaan oo Soomaali kala ku nooshay in la geeyo ana u soo noqonaya martida iyo dhalinyarada isla su'aashaas hadoo soo koobaya sidaad u aragta haddii hadda qof TB qaba ama xanuun kala baqa xanuun doonaa qabee oo la jiifaa tahay suud xidho oo buur xidho oo dabeedna baabuurkana waa lagu siiyay mid bogsanaya maya wey wato wuxuu baahan tahay xaragoon in xanuunkii uu ka bogsado xanuunka meesha yaallana waa laba mid soo jireena oo qarankan af Soomaaliga ku hadlay Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ay dambiga wax ku wada leeyihiin oo leenuga baahay kulligan baynu daweyno iyo dhacdada meesha ka dhacdo iyadoo mid gaar shaariya dawada guud waxa weeyaan inaynu ilaahayna u wada toobadkeeno wala halgano qoyska iyo inanka waxa ku dhacay iyo odaygaas inaan meel kale ka dhicin oo loo kaco ulimadu kacdo dhalinyaradu kacdo aqoon-yahanadu kacaan odayaasha dhaqameedku kacaan cunto la siiyo iyo deeqa iyo waxani boogtu waa ka weyntaan qofku bini'aadmiga waxa ugu weyn u baahan yahay waxa weeyaan inaad qirto inuu yahay qof kala mid ah haddii aad weydataa waxaad la mid tahay waxaan jirin wax kastoo qofkan aad tartaana waxba tari maayo arooska markaa waa runtii
waa in saldhig loo sameeyo waxaan ku dari lahaa un inta magaceeda garan maayo laakiin waxaa leeyahay geesiyad baa tahay adeer anaa kule anoo maxamed ah hablaha baarka sare intaasaad dheertay haddaad maanta ragga la sheegi leeya 100 halaad haddii anigu aan kari karayo 200 halaad baan kaa dhigi lahaa waayo gidaar baad u badheedhay xaq baad ku joogtaa ma aha waxaad samaysay dulmi haddaad ku go'do iyo haddii aad ku guulaysataba model baad noqonaysaa lagu daydo oo tusmo ah qaran haddaad ka dhalato gobana oo ummadda Soomaaliyeed dad goba tahay waxaad noqon doontaa qof taariikhdu qirto waad mahadsantahay waxaan ku darayaa kaliya inta qalinka wax ku qorta inta afka wax ka tirsan inta meelaha ka tirroglaysa maanta kaalin baa u bannaan mid ka sheekeeya iyo mid ku gabya iyo mid ku heesaba dhacdadaas maanta waxay u baahan tahay mid weyn iyo mid yarba in loo soo guntado waxaan leeyahay qoyskaana ilaahay kii waaraha ka dhigo madaxda af Soomaaliga ku hadasha hadday tahay Somaliland hadday tahay kuwa kale in saarkana sida uu saaxiibkay baan leeyahay idinna waxa idin bannaan inaad gacanteena ka qaadataan ilaahay idin guuleeyay عاقل باش مدام عاقل iyo madax dhaqameed aad tahay waxa tiri Somaliland way ku yartahay hadii tirtana wax yar oo sidaa u sii badnay weeyaan soo hadii la isdhex galo maadaama qolada la hayb soocaanay gooni u degto qolada isku sheegtaa dadka kalena ay gooni u degaan oo ay qolaba qola ka guursato oo iyagu isku guursadaan qoladana iyagu isku guursadaan maadaama sidaas jirto oo isdhex gal jirin sidee ku imanaysaa inay dhacdooyin sidan oo kale amba dadka u soo baxay dhacaan mise idinka dad madax dhaqameed ka tihiin ma isdhex galisaan dadka oo ma ku tashkiilisaan inay iska guursadaan marka laga hadlayo ma isdhex galisaan dadka ha annagu intii ay Soomaaliland jirtay waxaan u wululeeyay in dhaqanka noocan ah laga koro takoorka laga daayo muxuu ahaayay in ummadda koriyo la heebso ayo in ay yihiin dad la mida oo ina waxba dheerayn oo inu isku dalnahay isku diinahay isku jirnahay marka annagu wan ku wacyi gelina ololahaana muddo dheer bagoon wadnay waxaanu leenahay hal laga soo dhaqanka wad maasantahay waxaan siin doonaa garyaqaan guleed Axmed Difaac sida la sheegay arintani waa arin Soomaalida oo dhan saameyn ku keeni karaysa haddii ay sii socoto ka sharci yaqaan ahaan arintan talaabo caynkii ay kula muuqatay in hadda laga qaado artaan inta ka jawaabin anigu waxaan qabaa Somaliland kuma yar hadeen doonin la isfaaniyo la dafiro dhibta jirta Somaliland iyo Soomaaliya iyo Boosaaso iyo Jigjiga iyo Djibouti meel walba Soomaali joogto dad baa la haybsoocaya lama ogolayn laga guursado waa la caayaya afxumaa lagu hadlayaa hadal xun baa lagu oranayaa iskuulkii ma dhigan karayaan shaqooyinkii lama siin bal dawladahan jooga eeg oo inta percentage-kay ku leeyihiin dawladaha qaybahooda kala duwan ku eeg ma jirto marka horta arrinkan aan u fahamno inuu yahay calaamad sibtam xanuun weyn oo bulshada Soomaalida ku jira inuu calaamad yahay dhibtuna guurka kaliya ma ummad baa inta gaar looga dhex saaray dadkii la takooraya la riixaya la ogan sidii Yurub ka dhici jirtay iyo Mareykanka dadka madowga dadka cadaanka ay discriminate gareyn jireen ayaa ummad inagii naga mid la discriminate gareynaya qof walibana wuxuu iska dhigayaa inuu ka ceeb la yahay laakiin qof kastaaba waa eedaysan oo ceeb u qayb kaleeyahay horta taa weyn u aragnaa Mareykanka markii la diiday dadka madowga inay wada fadhiistaan basaska inan baa diiday waxa dhex fadhiisatay waxay fadhiisatay qaybta horan dadka cadaanka ah baa la qaybtan dadka madow qaybtii dadka cad bay fadhiisatay waa la xiray mudaharaadadii ka dhacay baa qasab kaga dhigay shaqo ka joojintii la joojiyay takoorka caynka ah horta tan oo kale waxaan qabaa inay keento kacdoon dadweyne oo dadka Soomaalida hidiidaan takoorka ummadda laga hayo ummadda Muqdisho joogta iyo kuwa Hargeysa joogta la takooriyay way kala duwanaan karaan laakiin waa isku mid markii inaan u fahmin mashaakil xamar u gaara حمر دولة الآن بكتشرته دولة ما كتشرته لقيها بقف كل مشروع عن سكوك قادم كل واحد ديلي كرا لكن سوماليا لفتي جدا ديل كاسي كدع وإنه كوهينا تاريخ دين وقت أنفوجين هرجيسار دو صح سنة كرير كهر ينان انتو دونين وجورس دو ويل وأبيه سلسلة كل حلو جراعود دلو تشر دلو جاتشر كل تري جاري صوبتها سيبا دو جورس تاني قبيل كاسولية سيا قبيلة بيك هذا عليه هذا دون سنة إكسامبل سبقلات إكسامبل سوماليا كتشرة أي نهيل هذا دامي تكتينا لو مليون إكسامبل بالك سينية marka horta dhibta waynu qabnaa wax ka qabnaa maxaad ka qabateen dadkiin xuquuqul insaanka waxba kama aan qaba dadka eedaysan baan ka midna laakiinse dhibaatooyinka xuquuqul insaan ee gabooyaha haysta laba way oo dadka kale kaga duwan kow
haddii adiga maanta dowladdu wax kuu geysato dowladunbaa dhib kuu geysatay dadka reer somaliland way kula uyeeyaan oo way kula gargaarayaan laakiin iyaga qof kastoo reer somaliland waa dhibaato ku haya oo dhibaatada ay ku hayaan ay ugu liidata afxumada tahay oo qofka erayadu dadka ku caayaya ay tahay tu cid kale wax ugu geysanayo marka horta social revolution baynu u baahanay waxbarashadeenni wax ka bedelaynu u baahanay dowladeenni wax ka bedelaynu dadkeenu si u fikiraan bay wax ka bedel maaha wax laga qaban karo koob iyo laba wax la xidhay dowladda hadda Soomaaliya laga hadlayo leeyahay waxay doonaysaa inay samayso guur aan qaran anigu waxaan ka eegay dhinaca ah sida iyada laftigeeda dhibaatadu ula fududahayo ay ugu aragto wiil iyo gabadh dhibaato soo kala dhex gashayo ay u baahan tahay in tan la xalliyo laakiin taa maaha boqolaal ummadan oo meesha xitaa beerahoodii baa laga qaaday dadka Soomaali baantu dhulka degan beerihi ay lahaayeen qaar baa ka qaado haysta guryahoodii baa laga qaaday oo ay haystaan way markii dagaaladu ku iskaashki dhaceen reerihii qoryaha sitay ayaa dhulkii boobay marka haddii aad doonaysid inaad wax u qabato waa inaad beerahoodii soo celisaa waa inaad guryahoodii soo celisaa waa inaad protection siisaa marka mas'uuliyad ha qaataan dawladuhu oo dhibta intay fahmaan waxa ka qabtaan laakiin haddii lagu focus gareeyo hal qoys oo laga dhigo dhibaato dhacday hal qoys iyo qof xun oo qof kuba kaliya loo arko waxaan qabaa anigu in dhibtii aan xal loo helaynin tani xal ha u noqoto dhibta oo inaynu aqoonsano qaladka jira wahagaag cabdikariin baan siin doonaa cabdikariin haye kusoo dhow laba caruura ama laba qof oo dhalinyara oo ka soo kala jeeda dadkan aaminsan inaanay helin la iskuursado way isjeclaan karaan diintuna way u banaysay marka ha u banaysay ee markuu waalidku markuu diido diintu iska wax kasta xal bay u haysaa waalidku diidi karaa inantiibu ku oran karaa kuma siinayo ilaahay haddana subxaanahu wa tacaala wuxuu ku baneeyey guriga ku xiga haddaad kul idamkii weydiisatay inaad guriga ku xigto kuugu mehersamayso gabadhiiba ayaa lagu siiyey halkaa markay gaadho dawladdu inay soo gashaa la rabaa ammaanka in la damaanad qaadan ammaanka labadaa qof ee isjeclaaday ee laysu diiday dawladdii bay ay ku soo wareegaysaa marka waxaan qabaa meel kasta maamulada ka jira Soomaaliya meel kasta markay dhacdo dhaqanka arrimahan caadooyinka iyo dhaqamadu wax habeen iyo maalmo iyo saacado aynu kaga adkaan karayna maaha dadaalkeeda inaynu wadno wey laakiin markay dhacdo in labadii qof saa isu jeclaadaan waa inay dawladdu soo gashaa waa inay dawladdu ammaankii sugi kartaa labadaa qof waa inaan waalidkii labada dhinac midina aanu dhibaato u geysan karin labadaa qof waayo diinta isoo ogolo saa isugu ogolaatay wahagaag yaa mas'uuliyadda markaa qaadaya si aanay dhacdooyinkaasi mar kale u dhicin waa mas'uuliyad wadareed warta marka hore dhammaanteen mas'uuliyad bayna wada saaran caawadan aynu codkeena kor u qaadayna waa mas'uuliyadda ayna faraysa inaynu codkeena kor u qaadno waxaa kaloo iyadana loo baahan yahay horta kow dawladdu mar kasta xukuumadda halkaa ka jirta ayay tahay iyadaa ka mas-uula ammaanka iyo nabadgelyada qofka muwaadinka ah ee halkaa ku nool iyo iyadaa ka mas-uula number 2 waxaan isleeyahay dadkan laftigooda la haybsoco inaad xaqaaga soo dhacsataa adigoo fadhiyo ku iman maayo dadaan dhibtan kula dareemayn ama adiga aan ahayn iminka maxamed cali weji siduu u dareemayo iisaan lagu dareemayo waa laba kala duwan wey dagaalka lagula jira haybsooca markuu maxamed cali weji inuu horgelayay ee uu isagu wado inaguna bari taareen iyo markaan anigu wado isku macno ma samaynayso waxaynu marka u baahannahay dadkan la dhibaataynayo ee Soomaaliyeed iyaga laftigooda inaynu abaabulo oo iyagu ay noqdaan kuwa xuquuqdooda u dagaalamaya haddaad intaad xorriyaddu kuma timaado oo hindee xorriyadda waa la soo dhacsadaa waa loo dagaal marka dadka laftigooduna waa inay fadhiga ka kacaan waa inay codkooda kor u qaadaan waana ku hambalyaynayaa mudanayaashii golaha baarlamaanka ka jiray marxuumka imika muqdisho lagu dilay inay arrintan codkooda kor u qaadeen inay barbar istaageen qoyska inay ma garanaysaa marka saas si lamid ah meel kasta waxaan rabnaa dadkan madaxda dadka wax u bartay inay dadkaasi inay horgalaan oo ay dadkan masaakiinta dhibaatooyinkii tacdiida lagu haya ka hadlaan oo codkooda kor u qaadaan shacbiga kale ama ummadda kale Soomaaliyeed saynu caawi ugu doodayno kale in iyaguna ugu doodo codkooda kor u qaadaan waa hadsantahay intaanan dhalinyarada u gelin oo barnaamijka iyaguna martii noogu ah waxaan siinayaa waji runtii way dhacday in sharcigu u hiiliyey Somaliland arrin noocaas oo kale anaana maraka ahaa ma jecli qoyska in hadda magacyadooda waxaa sheego laakiin inan iyo in saas oo kale isu doonayay anigu aan xaalkooda ka warhayay ayaa odaygii dhalay diiday inuu inankiisiyo inanku reerka iyagu ah dabeedna maxkamaddaanu geynay inantii iyo wadaaddo ka marakacaya inuu ninka nin aadaabtiisa iyo diintiisu wanaagsan tahay waliba halkan waxaa jecel inaan ka ammaano qaadiga la yiraahdo ina beergel waa qaadi sax nambarkii markaanu siinay odayga ayuu la hadlay odaygu magaalo kale joogay magaalada magacaaba xitaa ma rabo wuu la hadlo wuxuu qaadiga caynkaasaan ahay inantaadi way hor fadhidaa ninkaasay la socotaa waa nin islaam oo u qalma
ma siinaysaa inantii mawlaad miligiisa maya buuri haddaba anuu qaajibaan lahay sharciguna wuxuu siinaya inaan hadda meheriyo sidaa ku talagal buuri inantii sidii buu ku meheriyey weliba ereygan kusii ammaanaya wuxuu ahaa markuu meherkii dhameeyey ayuu ka soo degay halkii uu saaraa maswaagtayda soo fadhiista markaasuu wuxuu yidhi hadda markaan meherinaya qaadigii baana hadda se inanta adeerkeed baana isiiya gabaatigeygii halkii baanu gabaatigii waxaanu nahayni ku bixinay marka waxa way hortaa sharcigaa hiiliye anaa mara ka aha kama haarsaninoo runtii waxaa inay wadadaa wada maraan dadkayu waan jecelahay laakiin inta badan keliyahaasaanay lahaynba qaadigaanay ka filaynba inuu sidaas ninka qaadigaasi yeeloo kale uu yeelo waji intaanad ka bixin hal su-aalaan ku weydiiyo marka inanku uu doonayo inanta waxa inta badan ku doodaan dadka la heebsooco markuu inanka inanta doonayo waa loo diidaa laakiin maxay hayday dhinaca kale marka inanta laga guursanayo iyaga way ogolaadaan maxaa sababtaas waa maxay anigu ma arag inan reerka yagaa oo inan reeraha kibirsan uu doonayo oo meel lagu siinayo oo waxa lagu kala qaatay horta ma arag tii ugu dhaweyd waxay ahayd inan anigu adeero ahay oo Sweden da markaa ninkaas aan geesinimo markaa taas uu la fogaaday ayuu halkan noogu soo diray gabaadkiga yaradka waan u meherni laakiin inna soo hor fadhiistay waan inaan ugu ducaynay ma jiro aniga maxamed waan diiday inaan hadda aan dhalo ingiriiska joogto hodan leeyahay caruurteeda ka talabaada anoo Yemen jooga waxa iga maraga barasaabka hadda meeshan maxaa la laas qoray digna maxaa loo bixiyay haysimo barasaabka haysimo ayaa ragii maalinta fadhiyaha nin bay iga soo doonay inanta haybaha fooq iska dhigaya marka wuxuu ugu dhigay inantaadan doonaya waa ku inanta miyaad garanay inanta waa tumaal baan ismaba geedaan maxaa ku keenay لا إله إلا محمد رسول الله لا يكبر حال باكو قبته ما تيجي كرت لما كنا سنود بايدي سنة ما معنى حال سيسان بالانيا جنب حالي قبل بايننا كودي هو تسيبه مكلتك كودي واي ريرين والله يا برت فوق ست عرمودا ليدين بان سكولي يابا أنكو عاية أمان حكي لك هلا لما كنا سنود بان عايشين ما نبان حولنا ساد نوع عيدا وسمع صديق هذا أبكي وهي كودي أنكو قضية دعاء ميس يرتكل كان وديني حردين مقبلني ما ساس أنا محمد وأنت هلك وأنت شقيني ودعداسة وما أنت وليك الله هي إن المدح قيد قادم محل يقول هذا ما أقوم به كوان حد جايبه مدحوينه وترتمية مع الهدي الشو الصحافة أنا ولي غنى وحل يقول هذا وحويان وهي بصعب ما نقم أنا هذا نقول كهرم لكن هذا أنا فرح سنبا سهدا بس وحل يقدري وسيستم كأحن قبيلته waxaan ku ilaahaa nidaamka lagu shaqeeyaa aruurtayda aan ku ilaahaa ma aha nidaam sax ah buugan dheer marti dastuurka arkaysa waxba ka jira bala ka saxi waa 8 qodob 8 qodob baan la inagu dhaqaa dad badan oo kala dulmanin way jiraan meel kasta af Soomaali laga hadlay 8 asaa lagu dhaqaa waxaan noolaadu qabiilku haba sheegaysanaan ha soo qaadin cadaalad laangaab hayska jooga halkiisa haweena daaba warkeeda haybtii tira leh ee halka degan u batalinaysa waxa cadaalada aad baad u mahadsan tahay weydika dhalinyaradii ayaa iyaguna barnaamijkeena igala qayb galaya oo ku soo noqon doona oo jaamacadaha ka yimid aqoon diineed iyo mid maadiiba wad barateen dhinaca hablaha aan ku horeysiiyay namadaana soo noqdo Samson Ibrahim baan u dhiibayaa mikrofoonka wad maqlaysay falanqaynta barnaamijka iyo waxaynu ka hadlaynayba maxaad ku darsan lahayd waxaan ku darsan lahaa bismillaah الحمد لله عاو هبينكي ugu horeysan barnaamij universal soo fadhiisto way jirtaa dhibaatadaas waana dhibaato bulsho oo badan oo sanawaad cadid soo jirtay bulshadeennuna ma aha bulsho dhayal wax lagu faahsiin karo hayb soocan oo kaliya xitaa ma jiraan waxyaalo badan oo dadka lagu soo caajir anu waxaan ahay 10 sano ka shaqeynay shaqaale caafimaad waxaan u shaqeeyaa dad dhibaataysan oo xanuunada aan bogsiga lahayn la noo oo ka mid yahay xanuunka HIV sida dadka loo haybsooco la sheegaya loo sooca waayo waa wax qadar Ilaahay ku keenay iyagoo dadkii lamida ayaa iyagana la sooca marka soocani waa sooc jiro oo dhaqaniyan soo jiitamay waxana weeyaan waa caadooyin waxaan markii caado noqoto Soomaaliduna aad bay caadadeedu u adagtay
oo waxayba samaysteen halhays la yidhaa caado la gooya cadhaa lay leedahay oo waxaasay dhakada ku sitaan marka waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay in qof kasta oo caqliga ama maskaxdiisu saliim tahay inuu ka qayb qaato ay u horeyso haday tahay dadka dhaqanka haday tahay dadka aqoonyahanka haday tahay culimadii waliba halkaynu ka liidanaa waa diinta haddii aayadda in akramakum cinda allahi atqaakum dadkoo dhan loo wada sheego aayaddaas oo qofka kasta oo sida lagu kala karaamo baday waa qofkii ilaahay ka cabsada qof walba intaa laabta ku hayo loo sheego waxaan ogahay ama aan garanaynaa qof kastaaba inaynu arrinkaasi suulayo magacaygu waa Hana Cabdikariim waxaan ka socdaa jaamacadda Armas waxaan ahay fakalka social work social workna wuxuu u doodaa maxaaradaay bulshada dhibaatooyinka taagan buu xaliyo anigu ra'yigayga ahaan markaan ku darso horta aqoontu waa inay ku bedeshaa aqoontu waa inay bedeshaa sad u fikiraysid aqoontu maaha kaliya inaad u baratin inaad ku shaqaysatid anigu waxaan oran lahaa aniga Hana ahaan fikirkayga qofka horta hadduu laa ilaaha illa maxamed rasuulullah leeyahay diintu hadday ku banaysay qabiilnad ku eegtid maaha midda kale abuse-ka lagu sameeyo dadkaasi la takoorayo kaliya ta maaha physically emotionally bay dadku u dilaan yani qofka la qabiilkaas ha tahay waxa ma tihid yani qofka emotional u dhintana waxa ka xun emotional ba ka xun physical qofka u dhinto aan waxaan oran lahaa waxay u baahan tahay inay culimadu ka hadasho inay madax dhaqameedku ka hadasho oo aan waliba waxaan oran lahaa kaliya ta hadal uma baahna ficil baa u baahan tahay in culimada iyo madax dhaqameedku ay hablahooga siiyaan ya si ay dadka kalena ugu diiradaan oo iyaguna hablahooga u siiyaan dadkaasi السلام عليكم دمانتين مقاعيق وأرويلو وحن كسعودة جامعة هرقيسة كلية السوشيال ويك أما واديق بنيادين تيني هورتانو فعلان قبا فعلك الدب سؤال بنويدين يا عاقلك صانقوب تكوادا نرنا يا واحد تاي هورتا حلالك واحد موديسا إني جبان سوماليدو ضد بي وحكا دقيسين جرتي وحا كميدا ها وداد وكالي ولا قدام بيا khudbad baad tagaysaa jimce waxaad arkaysaa wadaadkiiyo soo download gareystay 3 sano ama 4 sano khudbadaad YouTube-ka ka aragtay oo Sacuudiga khusaysa oo ka hadlaya gabadh timaha hadii doonto qaawisay oo context-keena ama qaaradina la xidhiidhay marka hadii wadaadadu ka hadli lahaayeen oo arrinta xoojin lahaayeen wuxuu isbedeli lahaa ta kale aan weydiinayaa su'aashan ku weydiinaya aqal waxay tahay waxaad noo sheegtay inuu cuqaashu isdhexgalka aad u taageera anigu taa waxaan qabaa inaanay jirin ra'yi ahaantayda waxaan markaa doonayaa inaan ku weydiiyo sababta ay cuqaash uga gaabsadeen maxay tahay sababta ay u arki waayeen maxay tahay marka iminka la eego dawladda laftigeeda waxaad moodaysaa inay hogaaminayaan ama ay gadaasha kaga jiraan cuqaal ama aan idhaahdaba dad kale oo madax dhaqameed yani waxaad leedahay cuqaashi dhinaciisa soo janjeedhaa dhinacii kale sida ay siyaasadaba uga kaambeyn gareyn karayaan ayay uga kaambeyn gareyn lahaayeen inay dadkiisu keenaan waayo iminka ninkan la haybsoocaya miyaanu nin ahayn intanin qaban karo sooma qaban karo taasoo la isla wada garanaya haddana caaqilku maanta haddaan anigu guursado nin beelaha la haybsooco ka mid a xitaa inuu iska daabixintayda soo xaadira wuu iga dhaaranaya hadduu isagu ugu horeyn lahaa ilaa reerka madaxa ugu sareysa isaga ah oo odhan lahaa inanta waa la siinaya aqligal bay noqon lahayd oo waa la siin lahaa laakiin iyagiibaaba ugu horeeyaba magacaygu waa Naciim Maxamed Xaaji waxaan ka socdaa jaamacadda Alfa wuxuun baan ku dari lahaa intuu Cabdikariin Axmed Moog sheegay aan adkeynayaa waxa weeyaan horto cid laga tiro badan yahay ma jirto tirana haddii la istiriyo waxaan filayaa inay naga badanayaan ama cid ka tiro badan aanay jirin marka waxaan doonayaa fariinta aan farayaa inay noqoto horta halganka inay iyagu bilaabaan waxbarashada oo kale halku adeer waji talaabooyinka uu soo qaaday iyo diirarka uu soo dumiyay way adkaanaysaa inay soo qaadaan laakiin waxaan doonayaa inay soo qaadaan oo ay la tartamaan dadka ay hormuud iyagu ku noqdaan ay tartanka ay galayaan noqdaan mid halgan aqooneed ay noqdaan markay helaan aqoon ee iskuulada waxaan filayaa uu yar yahay anu inta iskuulada soo dhigan la heerka jaamacadeed in marka marayo qof iyo 2 iyo 3 bay noqonayaan dadka gobooye ila soo dhigtay waxaan ka wadaa tirada way yar yihiin ay waxbarashada ku soo galayaan sababtuna waxa weeyaan dhibtan ay dadku ku hayaan ayaan u dhabar adeegi kareen halganka adeeraan ay soo sameyn karayn marka waxaan doonayaa inay soo sameeyaan oo halka campaign-ka ay ka soo galaan iyagoo ay soo sameeyaan oo aqoon ku tartamaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Mustafa Axmed Xasan waxaan ka socdaa jaamacadda Armas Department of ICT haddaan ka hadlo laba rayo kaliya oo gaagaaban mid waa midkan ka dhacay falkan ka dhacay Muqdisho doodeena ay khuseysay horta waxaan dareensanahay siday horeba uga dhawaajiyeen Cabdikariin iyo waxaan dareensanahay dhibaatada dhacday
dhaawaca loo geystay inaanay ku koobnayn oo keliya labadaa qof ee maanta isjeclaaday laakiin ay ku kooban tahay qoys badan iyo kuwo badan oo dhalan doona ay dib u jiri doonto laakiin waxay taa dawo u noqon doontaa waxay noqonaysaa halkii maanta waxaan arkaynay social media xitaa ayaa leen iftiishanadii lagu geliyay lasoo dhigay oo lahaa arooska noocaasa la qabanaya in xaggii aroos la geyn lahaa ama aroos lagu qaban lahaa ama farxad la siin lahaa dan marka ugu horeysa tallaabada ugu horeysa la qabta ay ahaan lahayd in tallaabo horta laga qaado laana waxay taas tusaale u noqon lahayd ciddii dambe ama ciddii ka dambaysa insha allah inay taa aad iyo aad taladaa ay maxay ay qaataanna aad baan u jeclaan lahayn haddaan soo gudagalo taynan somaliland horta waxaan dareensanahay ilaahay markuu ina abuurayay ama ujeedadii ugu horeysay laynoo abuuray keliya wax kasta waxay noo caddeeyey qur-aankeena oo hadalkii ilaahay ha marka quraanka laga yimaadana rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam suubana waxaan dareensanahay inuu ilaahay quraanka inoogu sheegay ayuha naasu inna ja'alnakum shu'uban wa qabaa'ila lita'arafu macna qabiilaan idin abuurnay ujeedada ilaahay waxay markaan idinka abuurnay hadana qabiilaan idin kala sameeyay qabiilada idin kala sameeynana waxaan idinku sameeynay saad idinku isku garataan isku dhex gashaan taasi waa dhacdo aad iyo aad u xun oo haddii wax laga qaban waayo dib u soo noqon doonto wax halkay ku soo gabagabeynaya in aynu ku dadaalo bal anaka dhalinyarada waliba afka dhalinyarada ku hadlay dhalinyaro ahaan inaynu soo dhaweyno markaynu waxbarashada wada dhiganayno inaynu soo dhaweyno markaynu kubadaha ciyaarayno inaynu soo dhaweyno markaynu kafeteriyooyinka fadhino si aynu u dareemin qofkaasi ciriiri ama caburitaan inaynu soo dhaweyno insha Allah aad u mahadsantiin waxaan filayaa waa TV-gii ugu horeeyay ee u dhaqdhaqaaqa wiilkaas dhalinyarta ah ee tacadiga guriga loo geystay ka dhalinyar ahaan waxaan leeyahay haddii ay siduu Axmed Guji ka sheekay ka hadlay haddii ay u dhaqdhaqaaqi waayeen madaxda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaaliya waxaan leenahay aad baan kugu damqanaynaa siduu garyaqaanku sheegayay waa soo jireen meel kasta adduunka ka mid ah way ka jirtaa waana taxane Soomaali meel kasta degtana waa la istacdiya oo dhinaca guurka walibana ah waxaan leeyahay Soomaali meel kasta joogto anigoo soo koobaya waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada Somaliland aad baan kugu damqanaynaa oo uga xunnahay dhibaatadaasi lagu geystay midda labaad ku darayaan waxa weeyaan waxa la yiri waxa loo gimgimaya aroos qarni oo aroos invitationkiisii ka socday imka Muqdisho waxaan filayaa inaanu taasi dareen ahaan bulsho aanin niyadiisa aanay u geysanayn ama guul ama farxad aanay ku soo kordhinayn waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad mahadsan tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya waqtigana soo koobaya mikrofoonka qofka magacaygu waa Ubax Aadan Axmed waxaana dhigtaa Hargeysa kulliyadda social worker anigu waxaan leeyahay maadaama oo la sameynayo discrimination-kan horena looga soo hadlay in badan laakiin aan waxba laga qaban maanta hadduu inanteena uu soo doono nin cataani waxaanu sameynaynaa waan farxaynaa waayo aan u diidayno nin isku dhaqan yihiin isku diir yihiin aan isku af ku hadlayaan isku situation ay ku nool yihiin anigu waxaan leeyahay dhammaan madaxda Soomaali meel kasta oo ay ku nooshahayba waxa ka qabato hana awareness badan ha ka samayso meel kasta oo ay ku nool yihiin assalaamu calaykum magacaygu waa Suura Cabdi Cilmi kana socda jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kulliyadda social worker waxaan leeyahay horta ma jirto cid ka badan mana jirto cid ka sareysa dadkani mental ahaan baa loo discriminate gareeyay laakiin waxaan odhan lahaa dadkani horta qof xaqaaga kale raadsan kara haddaan maanta magaalada dhan kacdo anad adu doonay inaad xaqaaga raadsato xaqaaga ma soo dhacmayo laakiin waxaan odhan lahaa dadkani iyagu ha kacaan xaqooga ha raadsadaan xuquuqdooda markay raadsadaan waxbarashada laga yaabaa waxbarashada markay ka tir soo gaadheen inay ka hadhaan oo islahayn bade ma geli kartid jaamacad waayo hadda jaamacad gasho wad ku daalisaa cid ku shaqo geynaysaa ma jirto cid ku horkacaysaa ma jirto dadkan caaqiladooda horkacaya waxaan odhan lahaa iyagu heer haag soo gaadhaan jaamacadaha ha dhigtaan waayo xaq bay u leeyihiin wuxuu muwaadinka Somaliland kale u leeyahay iyaguna waa muwaadin la mid ah xaq bay u leeyihiin oo hays muujiyaan kadibna markii iyagu dadkan hor socdaan ay qofkan doonayeen inuu xaqiisa raadsado dadka kalena way raacayaan way helayaan dad kale oo caqli sadiima leh oo la socda oo la raadsay xaqooda haddaba waxaanu adar ku sheegaynaa in annagu haddii aan nahay madax dhaqameedka ololayaal fara badan baan ku galay arrinkan oo si weyn baan uga ololeynay 2006 waxaa jiray shir guud oo ay cuqaasha gobolada oo dhan isugu timi 6 gobol ka yimi ambassador lagu qabtay 12 cisho la fadhiyay oo arrimahan laga hadlayay waxaan ku soo saaray go'aano iyo arrimo dhaxal gala oo malaynaya imika inay maxkamadaheena iyo meelo fara badan ay yaalaan halkaasi annagu waxaan isleeyahay roolka ku lahaydeen si fiican baa u ciyaarteen
waxaad og tahay maanta in dad badan oo dadka u tirin jireen oo ugaasiyo salaadiin cuqaal intaba lahaa inay ku dhoofeen magaca gabooyaha oo dadkan tunka waaweyn oo sheegaysaan laftooda kuwii hogaamiyeyaasha u ahaa dhaqanka ayaanu ognahay intaasoo hogaamiya dhaqameed oo aanu garanayno ayaa waxay ku dhoofeen magaca dadka la haybsoco la taka hora muxuu ahaaye taasiba waxa weeyaan inkastoo dee malaa la odhan karo malaa arrin dhaqaalun baa dee u geeyey haddana waa runtii dee berigii hore saasoo kale may dhici jirin waa guulo usoo hoyda baa la odhan karaa markaa annagu runtii waxaan isu leenahay horumar fara badan oo xagga dhaqanka ah oo aan muxuu ahaaye berigii hore jiri jiray ayaa wax ka bedesheen wacyigelin fara badanna waanu samaynay lamana dafiri karo anoo ku hadlaya afka dadka aad magacaabaysaan ama haybsooc ama magacyo kaleba ugu yeedhaysaan anoo ku hadlayana maanta intanoo tola oo isku wada raacsan maanta inaanu dulmadnahay aanu helno farxad bay noo tahay weliba waxaan aada ugu sii faraxsanahay in bahashu halkii ay yururtay way dhaqameedyadii qaar ka mid ay loo hiilinayaan waa farxad waxaa wey waddo furantay waddo aada u furantay xanuunku u baday adeer inantan lahayd may dadaalaan hablaha may dadaalaan oo dadka la haybsocay dadaalaan baa laga kelmad odhanaya aan ku noqdo anigu yeelaantaydi birfinin ka hadla bayaan horta oo wax badan baa soo maray macallin baan ahaan jiray intaan weliyaan noqon weliba muddo dheer mooye markaa inaad jirteen in kale 66 baan macallin noqday 67 markaa ayaan macallin noqday 67 iskuulkii u horreeyaan galay kalaaskii aanu ku reeyay galay markaa habluhu waxay lahayn iskuulla gaara wuxuu iskuul habla ah oo elementary primary isku jira beriga ma jirin waxa jiray elementary intermediate iskuul berber oo habluhu dhigtaan ayaan kalaaskii u horreeyay soo galay xiisadii markaan galay ee sabuuradii aan sidaa u eegay ayaan arkay eray igu kalif gaaray mar inaan shaqadaba ka tago af Soomaali ma jirin fasalkuna wuxuu ahaa standard 2 iyo standard 3 laba baabal mar Ingiriisi dhiganayeen macallin Ingiriisi noona Ingiriisi ro broken ay ku qoreen we know you Mr Blacksmith waan ku garanayna Soomaaliya miyal baan ha waan dhiiday laakiin waxaan ilaahay ugu mahad waa ardaydi galaaska qofka qoray garan maayo laakiin fara waaweyn bay ku qorantay way jadwalkii bay haystaan ay soo geli doonaan wax xiisada runtii waan gariiray ala dirtay ma ka wacyigelisay ardaydaas dhageyso ma si kala baraya go'aan ban markiiba gaaray waxaan adeegsaday educational psychology gaan soo bartay ee ardayda sida loo dhaqmo sabuuradii baan masaxay ereyadii baan daayay waxaan leeyahay thanks for telling me who I am wa mahadsantiin bari sheegista ay sheegtaan ninka lahay ana am proud of it class kii labaadan galay ana ku qoray kii saddexaad baan ku qoray ka afraad markaan maraya headmasterkii iyo yeeray waxaan la wadaa maxay carruurtu way ka soo taxawanaysaa reerkeenu baad ku qoraysaa meesha maasaan ku lagu kuma qorin idinkaas saaka igu bilaabay waxaan markaa waliba ka shakiyay macallimiinta qaar inay ka dambeeyeen arrintan waxaan adeeg ku leeyahay raganimada iyo kartidu maaha fanninka qura haddii hadda inan inamadeenna ka mid ah hablaheena dhiigkaada aynu maqsin ku xerayno halkan u dhigno alaab oo aynu 7 cisho 7 qof min 7 jeer u soo gallo oo naho doqon baa tahay ama doqon baa tahay waxay ka soo baxaysaa bil gudaheed iyadoo duufkaar iska biinay bal qofka bulshadan intaasoo milyan ku leeyihiin you are nothing muxuu noqonayaa markaa waxaan leeyahay gargaar rabbi uu baahan yahay dadkaasoo doomiga ka badaayo uu baahan yahay waxaan iyagana isdhexgal siyaabo badan ku yimaada ani my best friend oo saaxiibkayga igu dhoweey aan nolol wadaaganahay oo barkad weey yaraantaydina Sadiiq buu ahaa labaduba waxay kasoo jeedaan beelaha la haybsooco marka aniga wax dhawaataa iguma hayso guryahoodaan aqaanaa guryahoodaan galaa waan la soo noolay waan la soo ciyaaray waan la magaranaysa laakiin arrin uma ansaxaya anigu shakhsiyan doodo badan oo galayna waan ku sheegay maaha guurku inan iyo inan in la isu dhiso dadna arrintan aynu ka gun gaadhayno guurku iscalaamashadu laba qof bay dhex martaa dooxa ka horeeya ama laba qof oo isdoonayna isjecel in la isu guriyo ka soo horjeeda guurku jacaylku ku wanaagsan yahay in la isjeclaado ku wanaagsan yahay in doox jiray ku wanaagsan yahay in raali la kala yahay ku wanaagsan yahay ana waxaan qabaa
dhalinyaradana aan u sheegaya haddii ay dhacdo inay isjeclaadaan ama dooq ahaan ay isku qancaan iyadoon cidna isku khasbayn marka iyagu iscaashaqaan inaynu isu ogolaano inay nolol wadaagi karaan laakiin haddii aynu ka dhigna xal nahno matalan waa in laisu guuriyaa si xalka u yimaado saa ma noqonayso imaka inaan halkan fadhiyo dhalinyaro ama inaan halkan fadhiyo hadday maanta tahdo anaa inan gaboyaa guursanaya dee dabeecad ahaan baa laga yaabaa inaanay isba fahminba guurkiina ka xumaadaa laga yaabaa horta wax badan baa ka horeeya oo dee iscaashaq iyo isjacayl iyo wadahadal iyo isdoonid iyo qalbiyadoo raalli kala noqda iyo wax badan baa ka horeeya aanu isleeyahay inta xuquuqsaankaan ka shaqeeyo sheekada igu damqasha badan ee emotionkeeda kicisaa waa sheekada la xiriira dadka la haybsooco cid kastoo kale dad la dilayo dhib kastoo kale waa la soo shaqeeyo cid la qabto sababta waxa weeye dadka reer Soomaaliland waanay fahamsanaynba dhibaatada faham darro weyn baa jirta dadkan boqolaal sannadood haddaanay kumanaan sannadood ahayn baa la riixayay oo la cadaadinayay hanti baa loo diiday inay yeeshaan inay wax dhaqdaan inay madax noqdaan intaba waa loo diiday cidda u diidayna waa community-ga inteeda kala weyn haddii la doonayo dhibtan laga baxo haddaad daami tagtid hal iskuul hoosaa ku yaala daami moodsi inuu Somaliland ku yaalo lama MCH baa ku yaala xitaa dhakhtar male saldhig booliis male dabadeedna dhammaan tuugada iyo dadka xun ee Somaliland joogo dhan baa ku dhintay hadhow reer daami baa lagu caayaa booliiskiina inuu saldhig ka samaysto wuu diiday maalin walba oday dhaqameedku waxay yiraahdaan kaalay oo saldhig nooga sameey xaafadaydu xaafad weyn oo qaantan saldhig laga sameeyo haddii la doonayo dhibta laga baxo waxa la dawladdu mid ha samayso waxa la yiraahdo af Ingiriisi affirmative action waa la sameeyo gubahooda weyn waa laga dhisaa waxbarasho bilaasha cusbitaallo bilaasha dadka private sector-ka shirkadaha waa in lagu qasbaa percentage inay gubooya ka siiyaan qasab haddaad dahabshiil 100 shaqaalaysatid 30 waa inaad qasab ka siisanad gubooyasiisid dadka weyn waxay xaq u leeyihiin la siiyo maxay xaq u leeyihiin dadka kale waxay ku tanaadeen idinku ku tanaadeen anigu ku tanaaday ee dahabshiil ku tanaaday waa hantidii iyaga laga qaaday laga riixay because fursad ay ku shaqaystaan lama siinin horta taa fursada laga siin ta guurka timi gabooyi anigu xaafadan kana shaqeeya maalin walba taaganay waxba uguma baahnayn inuu guursado wiil soconayo la weyn guursanay because dhibaato guur ma haysato waxa haysata dhibaato iyo cadaadis labada isjeclaada iscalmadaha la nabadgeliyo caqabadaha laga daayo aflagaadada iyo caydanaha la iska madax baa tiifiyada ka cayda dadka iyagoo ku caayaysa eedayo ay ku dhibayaan markay hadlaan dadka gabooyaha lagu dhibay marka inaga af xumo geysanayna dhibaato u geysanayna maalin walba caayana hantidii aan waxba ka siinayna dawladda dhanaynu aragnay 27 bay Somaliland joogtaa way faanaysaa hadda xamar baynu afka ku taageynaa 27 sanadood bay Somaliland jirtay oo wasiir ku xigeen wax ka weyn lama siin xamar wasiiray kulay wasiir ku xigeenay kulay xildhibaanay kulay teeni dimuqraadiyadda ku sheeganayna malay marka waxa weeye dhibaatadan aynu inagu sameeyno intaynu qirsano guilty dareemno dambiilayaal intaynu dareemno aan wax ka qaban dhalinyarada aynu gudbino idinkoo soo koobaya waqtigii iyo xalkii weyna hore weyna hayaan bismillaah horta anuu soo koobaya haddaan aan bal yarta taabto sida waxaad qabtaa guuleed iyo cabdikariim anuu horta waxaan qabaa sida guuleed iyo imika cabdikariim ka dhawaajiyeen oo ah inaan horta guurkii lagu degdegin bal horta nolosha dhinacyadii kale ka soo galaan oo inuu fasaxno waxbarashadii iyo noloshii kale ay u bahnaayeen waa maasatay taasi kaga gudbina dhalinyarada marxiim raalli hada halka kelmid waa ku raacsan horta cabdikariim hadalkiisa inay soo saaraan dad galaan kaalin galaan laakiin su'aashaada adigu aad weydiisay ha dhaqaalaha qofku markuu dee kaalin galo uma wasiir noqdo ama taa guurkaan kaaga warrabo horta anugu haddii ay inankiina heshiiyaan oo jacayl guurku wuxuu ku yimaadaa is ogolaansho labada qof oo dee wax isla meel dhiga isfahma ama isjeclaada way timi taas way dhacdayba bilmetel labadii qof way isfahmeenba kala duwanaadaan kala hayb ha noqdaan waxay noqonaysaa in waalidkii xal loogu noqdo waalidkii anu haddaan ogolahay ama aan inantiisa ogolaano oonu heshiino waalidkaygii qasab waa ku noqonayaa waalidkaygii ma ogol yahay waalidkaygii laba siyaabood bay noqonaysaa waalidkii wuxuu noqonayaa waalid aqoon leh oo jaahilnimo ku jirin oo wax ila fahma iyo waalid dee dhaqankii hore haysto markaa booda waxaan keliya waxaa sheegayaa iyagu bal kaalintaha soo galaan oo shirkad weyn ama meel weyn ama wax weyn intay furtaan markaa inantoba la raadsan bay iyada la raadsan la doono way samayn karaan lacagta waxa weeye ma shaqaysan karaan shaqo looma ogola ummadii inay soo dhex galaan looma ogola iskuulkii markay dhigto gabooya taa lagu oranaya magac xun baa lagu caayaa uu iskaga baxsanaya dadkii anaga ka klaaska naga dhigta dhowrka naga dhigta nafta la isugu keenay jiray kuwa aqoonyahan iska dhigaya isugu keenay
haddaad taariikhda dib ugu noqotid aad adigu halkaa ku fadhida waa hanti iyaga laga dhaco laga keenay waxan waa boqolaal sannadood waa tusaale ahaan dadkii madow maanta afrika gaajoonaysa afrika marka dhibaato iyo faqri ka jiro ninka cad intuu inoo yimaado yaa maa shaqaysataa meeshaas ka fadhidaane laakiin muxuu meesha ka saaraa inuu isleef dareer intuu qaato dadkii boobo adoonsaday oo hantideeni isagu taajir ku noqday horta halkii haddeen marayno halkan dadka noocan cilmiyan qurumo inoogu horreeyaa jira ama inooga dambeeyey waddaday marayno baa lagaga baxaa saddex nooc baa lagaga baxaa markaan u noqdo dadka oppressorka kuwa la cadaadiyo saddex waddaa loo maraa saddex waddo loo maro mid waxa la assimilation waanu soo maray qurumahaasna way soo mareen waa ku gabasho magac reer kale hadda mar baa jirtay maanta horumar baynu joognaa maanta ninka reeraha ka tirsan reerkiisu sheegan karaa baraad bay marka ninkaas reerkaa sheegtan leeyo waxaad sheegaysaa reer maaha reerkaad la degta sheeg lama sheegin karaynba maanta horumar baa la gaalay in la sheegto idinkuna ku dhawaaqaysan ku dhawaaqay waxay dad jiro oo la aqbalay gaalo way soo mareen waxa dadka madmadoobiyaan gaalo dadka madmadoob way soo mareen assimilation waa tan inagu aynu sameeyna hadda iscadaynta hableen iscadaynaya maanta waxa keenay in gaalka loo eekaado maaha macmadowga cad ee ragga ayaa waxay keenay timaha jilciyaan iscadeeyaan si ay uga ekaadaan Europeanka way socon weeyeen Malcolm X baa ninkii bilaabay Xaaj Maxamed ee Black Beauty waa soo dhameeyay sheegayo waqtiga ayaa gabagabaynaya Black Beauty waa kalsooni qofku inuu ku kalsoonaado horta kalsooni ku kalsoonaado qofku wuxuu yahay weey tii laga dilay ee ahayd inuu sagxad yahay inuu ka soo kaco wuxuu ku yahay ku kalsoonaado oo hadda siyaabahan ku nool waxa kamid ah qofban bas fuulo ninka ag fadhiyo waxa ku laaqo lamaata bismillahir rahmanir rahim qolaa sheegaysa meedni weyn hayn waxa la isku hadlo mareer daan baa taawada la isqarinaya ma yeelay bilbare go'so soo saari wuxuu ka carraya magacan aan sheegay hadda أنا كالباشا ما هي من قبيل شعلا وإن الموتشيا إن كرسوني محمد وحي يقول على بيانها أنا أقل أن كنت رفض ليها أيه وذات أقل دوني سنة صومرت إن الله يوم كا يرابي كتري ولا غير هبل قاهو عين كاسة متقالنا مركز ما يمنقان ولا غير من قلب الريالكا ولا غير وين المقالة وسيت هو ما هي كان غير هبل كرنين ما سانكرو تمالي رود الجويس كتقو الله كله ويسيسريو ما إذا كتبالها إذا والله إذا راي بنت حكى له قال كتبالها سوا عضو فيرو ويرو هالكابر مركا وحويا هو تحسد كل كاو صبح تيكس تايم حق الدون كاي ماذا منا كل كيس بيا كم دولو إيكونومي قوي ذيك اللي قال لي جماعة ذا كريستا إيكونومي قوي اللي واحد إيكونومي يونت حد ما قال لي مركا مع ذاك هاي صوتهم وين خايتك كاك فرنتا وين هدالك هالكيه وين كي حولا كان يمي كيمني كوكو حرية انفراستراكشر كحرو ترايب الله أي أشرا مقولتها هي هالكيسة هدي وكفر تم خالد أنت ضلوا إلى قبل نطوم نبأ إنما الذهب لفتار كبر دويتو بقى هاي جالسينكم مغلي مقال مالكم دي الذهب لك فرتان إنما حافظي ذا ساعة دوم البارك هرتها قالوا لنا يا ده نذهب لها قولوا لي غير طعمي بالك جلسي جلالي كده هذا والله waad mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin martida barnaamijka dhammaantiin sidaad u dhantihiin cabdikariin axmed mooge guule dafac maxamed xasan cali weji caaqil baashe dhalinyarada jaamacadaha wiilal iyo gabdho aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkeenii falanqaynta toddobaadkana habeenkan caawa intaas ayaynu kusoo koobaynaa haddii alla yidhahdo daawadeel waxaan idinku dhaafanaa intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo